الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد meeshaan maanta waxaan ka salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Boqor Cabdi Axmed Cali, boqorka beelaha Hawiye. Waxaan rabaa inaan dhowr arrimood ka hadlo. Marka koowaad, Soomaaliya way diiday in wax la wada yeesho. qolo walbaahuna waxay go'aan ku gaartay meesha ay joogto in ay maamulato, inaan maaragtay aysan qoom kale u soo gudbin. inagu marka dadkaan boqorka u ahayo beelaha Hawiye ku nool beledka gobolka Banaadir, waxaa dhibaato ah oo shida ah oo lugooyo oo nagu haya dadka dekadahoodii ay rabaroodooda ay madax bannaan yihiin, gobolladooda ay madax bannaan yihiin, in annaga cashuurtan kaga qaado ay maaragtay yiraahdeen Soomaalinimana la yiraahdo. dadkan waa dad Soomaaliyeed ku xukumo. Soomaalida marka waxaan dhihi lahaa dadka in wax la baroobeeyo oo qolo walba huban la ogaado cashuurtooda iyo maalkooda iyo hantidooda inay deeqdo in la kala ogaado. khaasatan dadka beelaha Hawiye waxaan leeyahay waxa la amaal ragaale amaal soo degdegan adduunyo amaal maaragtay magaciisa maalkana waxa la saas qoladaas baale. had ogtihiin nin mas'uul ah maanta madaxweyne ah oo dalka Soomaaliya gaarsiiyay heerkan waxadii dadnimo jirto hadii amaal jiro waa Sheekh Shariif. ani wali waxa ma tarin, laakiin waxaan ogahay in dalkan wax laga qaban karo oo dawlad la keeni karo oo doorasho lagu gali karo oo dadku uu isdifaaci karo ninkii tusay weey. xaq buu u leeyahay in taala loo dhiso. anigu xaq u maleeyay 22 Oktoobar taalooyinka leeran ku qoro hadda wax xaq u maleeyay. xaq waxaan u leenahay